الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحليه ومدي سفريا وأمريا تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلهي وحد كما قشان فتنوينك kuwooda muuqda iyo kuwooda qarsoonba. hadalka markuu nabigu ku yiri saxaabada ridwaanullaahi calayhim markiiba waxay yiraahdeen ilaahay waxaan magan kaaganahay oo ka magan galeynaa fitnooyinka kuwa qarsoon iyo kuwa muuqda. hadana nabigu waa ku celiyay sallallahu alayhi wasallam isaga la fahantiisana nabigu sallallahu alayhi wasallam ducooyinkiisa waxa kamid ahaa Allahumma inni a'udhu bika min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan. الله waxaan magan kaaga ahay oo ka magan galaya fitnooyinka kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon intaba. halka waxa ka muuqda khatarta ay leedahay fitnadu leedahay. waxa kale oo xadiisku ku tusaya fitnooyinku inay kuwa muuqda oo dadku wada arkayaan iyo kuwa qarsoon oo dadku aynan arkaynin u qaybsamaan. ama dadku dhan bay ka qarsoon yihiin ama dadka qaar kamid ay ka qarsoon yihiin. fitnooyinka sida xadiista nabiga noo sheegtay sallallahu alayhi wasallam fitanka bini aadamka kharibaya halis gelinayay markasto oo loo sii dhawaado adduunka dhamaadkiisa markasto qiyaamada loo sii dhawaado oo waqtigu inala jiitamo way sii darnaanayaan fitanku way sii badanayaan wayna sii xoogaysanayaan. maanta iyo waqtigan aynu hadda joogno xilliyadii ka horeysay oo dhow ka daran yahay. ما من زمان إلا والذي بعده شر منه قاله نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ما جرى وقتي إلا ككدم بيا كشر بدن وقتي الصوص صعدنا وحمان تجرى وحكبض كدرن بصوص صعدها فيتك إنها يستوحى كم ده معلوماتك يا أخبارتا إنو إيمانيا إنو سو ويرريا سو مريا وسائش اللي حريرو ورباهنتا سوشيال ميديا صباح دي مركا توقعدو وواقو كوبريو والتلفون كاغا فرتو waxaa ku soo weerarayo kugu soo dhacaya boqolaal macluumaad oo dan garanayni wax ku soo diray shaqo kuma lihid intaas ku soo weerarayso kugu soo yaacayso soo daadanayso. ruux muslimka waa inuu garanayo marka macluumaadkan dhagtiisa ku soo dhacaya ishiisu akhrinayso noloshiisa ku imaanaya macluumaadkan seebaad ula dhaqmi maxaa lagu sameeyaa waa qodob muhiim ah. macluumaadka waxaa ka mid ah kugu soo dhacaya qaar caqiidada wanaagsan burburinaya diinta duraya gaalnimo iyo zandaqo iyo ilhaad dadka ugu yeedhaya mabaadidii asaasiga ahaa iyo dhaqankii wanaagsanaa burburinaya akhlaaqda wanaagsan weeraraya amniga iyo nabadgeliyada istiqraarka bulshada khatar ku ah ikhtilaaf iyo kala tag iyo ummadoo la isku diro qayb ka ah boqol macluumaad oo balaayo xambaarsan ayaa ku imaanaya. haddaad marka iska tahay qalbi xaaran wax walba iska aqbalayo waa ku dhamaatay هلكت وأهلكت واد هلاك سنتي وإحنا واد هلكت. حلو باهي مركب دور قضب أو شرعات وينو شيكتي مركب معلومات كوكوي مادان سيد الله لا رقمه دين تينون وحبك التجين باينو شيكت كو مركب كوباد معلومة هذا وحكوك قيب صنيصه وإن أوجاتو ماشي أي كتمت مستر كيدي ماشي كسوف شيء اسكهوبي مستر كذا وكيمد وركو هدو قال يهي أما فاسق يهي روح مسلم لكن دين لا واحد يقول فاسقة
markaasi waxa ugu yaray waajibka kuwa wax weeye macluumada ka istaag ilaa aad iska hubiso يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مؤمنين تيو هدو نين فاسقة دينتي سسي وحكيهين ومسلم لكن دينتي سسي وحكيهين هدو ور إذين كانوا ورك إسكهو بي أبو الله تبارك وتعالى مسلم كفاسقة هدي وركي سي لإسكهو بينا يو قال كي كورن مساديرتا ورك هدى التبسة وبني آدم كورك أقيبسة 95 كبدن بقولكيبا waxa way waa gaalo hadayna kaba badnayn saas daraadeed warka iska hubi adoon iska hubinin meeshuu ka yimidna wax ku qaybsanin Allah baa ina faray tabaaraka wa taala si aad sharkiisa uga badbaato qodobka labaad iyo qaacidada labaad waxay tahay warka laf ahaantiisa taasi waxa way meeshuu ka soo fulay warka laf ahaantiisu iyo macluumada laf ahaanteedu waa inayna diinta ilaahay iyo dhaqanka wanaagsan aysan ka hor iimaanayn hadday dhaqanka wanaagsan ka hor iimaanayso ama aqeedada ummadda dib u geysanayso ama akhlaaqdeeda dhaawacayso ama fitna abuurayso markaasi ma banaana inaad amar rumaysato ama qayb ka noqoto bal waxa waajib kugu ah inaad ka hortagto inaad la dagaalanto الله قرآن الكريم كانوا شيء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مؤمنين ترجع يكون الدمرك شقضوا محيتها حمان تيلدق اللمان وناجا يوحى وناكسني خير كان ويفرانا ويكشقيان مؤمن هداتهي ويناد حمان تيلدق اللانت ويناد كهر تكتو ويناد بوريسو وإلا وحوي إيمانك أي علامة سؤال فوليسها النبي قال نمر إلى حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده روحي منكر أركا معلومة خلدا دين تدبكوا لقن كدبكوا أخلاق تدبكوا النبي يقول صلى الله عليه وسلم كعنت وحكا قبو هذا كري كرين عربك وحكا قبو هذا كري كرين قلبك ككهو قلبك هو كحجي ماذا كهو وحبك ما قام كرت لكن وحوير إن هذا الرالك واهي مؤمن واحد النبي صلى الله عليه وسلم أنت وقلبك أقول إنه لبصداء أيا واحد أضعف الإيمان إيمان أنت أغتبر يروح حديث كلوح ليه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان أنت وح إيمان وكذب بيا ما بتشربه لأن حمانته الرالي اللي نقول نقضه قيبات كتاهي قال لماذا رالي كن نقطه قيبات كتاهي فسقك إيا فساد كود رالي كن نقطه قلبك أقول ربه قيبات كتاهي الرضا بالكفر كفر والرضا بالفسق فسق والرضا بالظلم ظلم سيداس دناديد معلومته وإنين الدين تادي رقم كاغا وناسن كهر إيمانين قضبك الصدحات وحويان معلومة waxaad arkaysaa marar fara badan dad faafinaya oo markay ku soo dhacdo aan ku ekaanayna kaliya inuu isagu akhriyo laakiin si faafinaya si gudbinaya macluumada markaad gudbinayso ayadoo sax ah haddana waa inay faafinteedu ayna ka dhalanin dhibaato ka imaanaynin laana wax walbo saxan lama faafiyo wax walbo la ogaadana lama sii daayo falka aad samaynayso iyo hadalka ka soo fulaya iyo waxa aad qorayso markaad faafinayso waa inaad hubiso maxaa ka dhalan kara maalatul af'aal haddii mafaasid iyo dhibaato ka imaan karto iyadoo saxan baa yaad haysan haddayna dhibaato ka imaanin ama manfaacad iyo maslaxada ku jirta badan tahayna markaa waad faafin ha noqonin marka muslimku waa aqil muslimku waa baraarugsan yahay muslimku waa aqli badan yahay مسلمكم معها عد لو شقيست معها كفير سوحة الله كفير سوحة فافينيس مركا قاركود waxaad arkaysaa ahadiis nabiga lagu been abuurtay sallallahu alayhi wasallam ayaa kuwa iska qalbi wanaagsan baa soo gelinaya waxay ku leeyihiin si faafi ajir baad ka helaysaa war ma nabi maxamed oo lagu been abuurtay ajir laga helaa النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين
ruuxii war iga sheega buu nabigu sallallahu alayhi wasallam warkaas oo been ah kuwa beenta sheegay buu ka mid yahay ninka beenta faafinaya iyo ka beenta sheegay isla manzilo waaye allahumma beenta markuu faafinayo inuu baraarujiyo mooyaane ninka gaalnimada faafinaya iyo gaalnimada ninka alifayay waa shariikaan waa wadaagaan ninka fisqiga iyo fasaadka iyo akhlaaq xumada faafinaya iyo ka soo alifay waa shariikaan way wadaagaan sidaas daraadeed ha noqonin sidii buun la isticmaalo kale ha noqonin sidii idaacad ama telefishin wax la marsado kale wax soo alifay inta badan gaalay u badan yihiin aan akhlaaq lahayn kuwa islaamnimo sheeganayo oo aan akhlaaq lahayn waxa noocaas oo kale intay wax soo alifaan ay diintaada iyo dalkaaga iyo akhlaaqdaada dib ugu geysanayaan inay adiga ku marsadaan oo aad u noqoto wasiiladii u faafinaysay u gudbinaysay waa aqli xumo marka labaadna waa diin xumo ka fiirso marka aad uga fiirso nabigeena wuxuu sallallahu alayhi wasallam ninku wuxuu gaadiid ka dhigto ama ruuxu wuxuu gaadiid ka dhigto fuulo waxa ugu xun inuu yiraahdo waxa la sheegay zaamu waxay sheegeen waxa kale nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam alla wuxuu idinka haday hadaad muslimiin tihiin qiila wa qala qiila waxa la yiri waa war aan la garanaynin cidda tiri wa qala wuxuu yiri waa war la garanayo cidda tiri laakiin faafintiisa aan macna ku jirin qiila wa qala waxa la yiri wuxuu yiri الله وإذين كراهيستو وإذين كهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكى النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما روح واحد ذنبي أغفلا أن يحدث بكل ما سمع وحكستو مقرئين كشكي وحبا ما حسلن كرو ور ما هين كرو وحبا ما ريبي كرو ما كلا شانقين كرو وحلا وحي سو غادبا و سي دايا وافافيا هذا ذنبي كلام الصمينين انت ذنبي كوغو فلان بالنبي محمد صلوات ربي والسلام عليه ذنبي انت كوغو فلان صوت وحوي وحنا تسي غدبينيسو قيبات كتاي ساسترادد هذا لوغا فيرسدو زمن كان فتنك ugu waaweyn in haysta waxa kamida طفرة المعلومات كاسي si aan qiyaas lahayn mawjadahaasi dadku ay wada sheer gareynayaan ee la wadaagayo ee la gudbinayo ee la isu dhiibayo qodobka ugu dambeeya qawaacida loo baahayaa inaynu ku dhaqanno marka macluumaadkan aynu kala soocayno waa inuusan ruuxu shaqo ka dhiganin inuu waqtigiisa ku lumiyo macluumaad raadin laana waqtigu waa qaali in aad baraha bulshadu isugu timaado mid ka guuro mid kale u guur maalinkii oo dhan kolba mid gal maalinba mid u guur website-yada Facebook-yada YouTube-ka kolba mid wax ka raadi waqtigaaga inay lumiso oo maxaad raadinaysaa meesha ma macdan baa ka gashay ma diin baad ka faa'iidi ma adduunyaad ka heli maxayse macluuma aad waqtigaaga ku lumiso macna weyn ku fadhiyin maxay kugu kordhisay waa su'aal isweydiin leh ruuxa muslimka waqtigiisu waa qaali waa waqti ilaahay caabudayo waqti uu shaqaysanayo xamaalanayo waqti uu nasanayo oo uu istiraaxo qaadanayo la maani'a inuu yaani wax way jirkiisa uu marmarka qaarkood uu muxuu ahay tamaariin qaato dhib ma laha laakiin waqtigaaga inaad ku lumiso waxaan macna lahayn nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'ni ruuxa islaamnimo wanaagiisa waxa kamida waxaan faa'iido ku jirin uu isaga tago waqtigu wax la dayaca ma wax lagu ciyaarana ma ka faa'iidayso waqtigaaga waxaan macna lahayn ha isaga bixinin macluumaadka ku soo gaadhayana kala sooc oo kala huf oo gurguri oo ka xun iyo ka wanaagsan aqli iyo cilmi aad ku kala saari karto yeelo hadaadan lahayn ha ka qayb qaadanin macluumaadka khaldan inaad faafiso oo qayb ha ka noqonin ujeedooyin dad kale ay leeyihiin qayb ha ka noqon sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.